wafdi hogaaminaysa marwada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Xakiimo Maxamuud Cabdulla oo kamid ah gudoomiyaha gobolka Galgaduud ee Galmudug siyaasiyiin iyo soo kala nabadoon iyo ururada haweenka iyo xildhibaano ka tirsan maamulka Galmudug ayaa maanta soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka waxaana wafdiga oo si weyn loogu soo dhaweeyay diyaaradaha Ugaas Nuur loo soo gudbiyay magaalada Dhuusamareeb iyagoo la dejiyay goobtii loogu talagalay in la dejiyo martida ka qayb galaysa mideynta Galmudug go'rayntii goobta waxa ka hadlay gudoomiyaha gobolka oo isagoo si weyn ugu soo dhaweeyay xubnahan maanta soo gaaray magaalada Dhuusamareeb intaas kadib goobta waxa ka hadlay qaar kamid ah odayaashii la socday marwada Galmudug waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay muddo dheer kadib inaan maanta ka soo degno garoonka airportka Dhuusamareeb oo guri guusha gudoomiyaha gobolka ma hogaaminayay iyo salaadiintii qaranka oo aanu kala harin waxaan leenahay Dhuusamareeb waa caasimadii maamul goboleedka Galmudug waxaan leenahay waxaan u rajaynaynaa guul waxaan u rajaynaynaa midnimo waxaan u rajaynaynaa nabad waxaan u rajaynaynaa barwaaqo iyo isu keenid bulshadii gobolka u wadatay iyo kuwa jiiraanka ah oo geenay nabaddu ku xirantay bifadlillahi tacaala ciidankeenna gudoonkeenna madaxweynaheenna baarlamaankeena haweenkeenna culimadeenna haddaan isku duubanno dhulkani barwaaqo noqonaya intaan kala maqannahayna gaaja nagu dhacaysa ugu dambeyntii waxa munaasabada soo dhaweyntooda soo afjaray Marwa Xakiimo waxaana hadaladeedii kamid ahaa waxa farxad kale ah in airportka Ugaas Nuur dhex taaganahay waxaan aad ugu faraxsanahay una hambalyeynaya una muxuu mahad celinayaa ciidamada meeshaan madaxooda aan ku joogno nabadgelyada ka abuuray muxuu in la sugu yimaado ilaa ka sokay sababay ayaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay waxaan u mahad celinayaa madaxweynihii hore muxuu sunna wal jamaaca waxaan u mahad celinayaa taliyihii ciidanka ee sunna wal jamaaca waxaan u mahad celinayaa sheekh weynaha Macalin Xamuud Sheekh Xasan waxaan mahad celinayaa gudoomiyaha madaxweynaha Galmudug Axmed Bacaali Geelaxaad dhammaantood waxaan uga mahad celinayaa horumarka wanaaga sharafta aan cid haysata aan la arag oo adduunka dhan lagu naaloonayo oo lala yaabay ay noo soo hooyeen ayaan uga mahad celinayaa maanta ismiyaatika meeshaan ka jira midka berri ah midka saadamba ee lagu maxaa xafladda lagu dhigaayo ummadda Soomaaliyeed oo saas ay u eegaysaa waa wax la sugaayay waa waxaan hore looga baran waa wax hadda noo cusub aad iyo aad u hambalyeynayna cid ka shaqaystay ilaahana ugu mahad celinaynaa waxaan aad ugu mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Galmudug ee ka shaqeeyay nabadeynta dib u heshiisiinta gobolada dhexe iyo Galmudug mid aan ka jirin ee maanta lagu naaloonayo diyaaradda keentay wafdiga Xakiimo waa diyaaradii shanaad ee maanta soo caga dhigata degmada Dhuusamareeb iyadoo uu fuud wada Cabdi Jamaal Macalin Axmed Kalsan TV Dhuusamareeb